wareedha sugday sayiduu saaxiib kaama goynaya hadalkee waxaan rabaa dadka marka hadda yarkaa sokorta qabo oo kale magaciisa haddaa xasuusatid eheladiisa inayna daawanayaan baa laga yaabaa magaciisana ku dar yarkaa sokorta qaba magaciisa waxaa la dhahaa Saciid iyo Ookiyaala deegaanku ka yimid haddaa xasuusatid waa wiil ma jeerteena xaggaasi garowe kasoo jeeda wiilkaasaa la dhahaa Saciid Ookiyaala la dhahaa ilaahay u naxariisto oo yarka ugu horreeyey oo mataqaana yarka macaanka qabo yarka kaa sheekeynaya maalinka 12 waa noo saarnay asoo halleen oo mataqaanaa dee oo barta noo saarnay inteeni marka waxaan sameynay dee wax la dhaho dee preparation oo isdiyaarin aan sameynay oo mataqaanaa dadkii dee maadaama dadkii intii ugu horreysay anaga u bilaabnay dee ciise dhoodhe Allah u naxariisto iyo maxaan ku dhahaa iyo yarka kaleeto Cabdifataax markaa galay iyo anaga markaan galnay oo xoogaa dadabaalanay ayaa waxaa dhacday raggii kaleetan nagu soo dhiiradeen dadkii kale soo galeen xitaa yaasiin dadkii dhan soo wada galeen xitaa wiil kaleeto xanuunsan aa jiray oo magaciisa la yirahdo maasin la dhaho oo maxaan ku dhahaa yarkii inta banaan ku baxay dadkii lala xiray haddana lasoo daayay hore aan kugu sheegay yarkaas xitaa waa nagu jiray yarka marka asaga aad yarkaa ugu xanuunsanaa asna marka asaga xitaa waa nala soo galo jaakadiisa loo xiray waa la dabaashay maadaama intaas aan bad saarneen 12 beri aan bad saarneen marka waxaa la dhahay bal asna hala soo dagala sidii lagu soo dejiyay sidii la mataqaanaa aan ugu dadabaalay aan ku dadabaalan lagu qubiyay kabacdi markaan cambaar dadabaalanay meeshii mataqaanaa xogaa farxadii waxaa rajarajan noogu soo noqotay sidii lagu soo noqday markaan saa u soo laabanay bishii maalinkii 12aad habeenkii markuu saa noogu dhamaaday ayaa waxaa dhacday maalinkii 13aad waxaa dhacday wiil kale tahay wuxuu dhahay ninka ma dhaqaaqayo ninka ila fiiriye markaasaa dhahanay war maxaa jiray camal oo markii noogu horreysay markaas warban nala fiiriye dadkii ku xigayaa fiiriyey bacdina marka waxaa laa ninka ma dhaqaaqayo hal jeegareyntii ku bilaabnay markasta si fiican u jeegareynay maadaama qofkii ugu horreeyay oo naga dhinta uu ahay wiilka Saciid Ookiyaala ilaahay u naxariistay maadaama qofkii ugu horreeyay naga dhinta uu ahay jeegareynaa ku bilaabnay qof walba mataqaanaa inta gabdhaha aan ka ahayn laakiin raggeena inta badan kabtanada hadheen anaga dhan hadheen waa jeegareen nin walba bulfiir waxaan ka waxaan ka jeegareynay balsiga oo qorta iyo gacmaha iyo wadnaha meel kastaan ka jeegareynay iyo qofku markuu dhintana dee waxaa ku garanaysaa dee horta wadnihiisa ma shaqeynayo haddana mataqaan wejigiisa dee wejiga qofku waa isbedelaa maxaan ku dhahay indhihii waa mataqaanaa kore u taagmayaan maxaan ku dhahay xubnihii xitaa gacmaha iyo waxaas soo laamayaan qofkii dee shakli kaleeto yeelanaya qofku markuu dhinto marka ninkii waa jeegareynay qof walbaa jeegaraysay bacdina markii dambe la dhahay ninkii waa dhintay ninka bal waa kaasa sidii markaa ninkii waa mataqaanaa lagu qaatay in mataqaanaa janaasada lagu tugto la isku duwo sidii la iskugu duway sidii mataqaanaa janaasada loogu tugtay sidii mataqaanaa ninkii mataqaanaa dee badda u raacino biyaha mataqaanaa badda loogu tuuray aan baddana mataqaanaa kasii raaciyey waa maalinkii 13aad maalinkii ku xigay qof nagama dhiman maalinkii kusii xigaya waxaa dhacday asna wiilkii mataqaanaa wiilkii kaleeto xanuunsanay oo asna oo aan ku dhahay maasin magaciisa maasin oo wiil reer laascaanood ahay xagga laascaanood kasoo jeeda ayaa dee mataqaanaa xanuunsanaa asna maalinkaas dee maalinkii oo wiilka dhintay maalinkii ku xigay asna xanuunsanay marka doonta waxaa nala saarnaa wiilka habartiis asaga ayaa mataqaanaa doonta la saarneed oo maamo Ekraan ayaa وكاغو أيوة يا maamo Ekraan anayo leeto caawinayna ما مقليا ما يصير عدو كيرح أقوي وكاغو hadda uu soo noqday marka maamo Ekraan wiilkaas kala dhabta ku heysay marka wiilka dee maamo Ekraan dhabteedu ku dhintay ilaahay ha u naxariisto isna wiil iska xanuunsanayo ahay markuu dhintay maamada wiil kale waxaa la joogay caawinayo mataqaanaa wiilka dee u riixayo lugaha u riixayo maadaama wiil xanuunsan ahay wiilkaasna magaciisa waxaa la dhahaa Yuusuf la dhahaa waa wiil mursada oo ka soo jeeda xagga Muqdisho koonfurta ka soo jeeda marka waxa dhacday markii wiilka uu dhintay maamada yaa markaas waxay dhahday war wiilka waa dhintay wiilka ila jeeg maamada markii wajigeeda aad iyo aad mataqaanaa dee isku bedelo maadaama dee ay ka naxday geerida wiilkeedii mataqaanaa ay ka naxday wiilka kale taa wuxuu dhahay war ninka waa dhintay ninkan jeegaray ninkan la fiiriyay sidii oo dhacday meesha la soo dhigay waa la jeegaray inuu meediyaha la arkay bacdeen dee waqti la siiyay dee waqti qof kasta markuu dhimanayo dee qofka waqti aan siinayeen qof ma lagu degdegeen waqti la siinaya barta la dhigayo waqti la siinaya saacado marka ka soo wareegtaa bacdina la soo qaada war meedkan iyo meedka naga tuura la hadlay meedka barkee qof waxa dhacay dee qof kale taa dee ku sii shoogay maadaama waa garan kartaa saaxiibka shalay hal meel wada joogteen wax soo cunteen
shalayna doonta soo wada raacdeen garabkaaga fadhiyey maantii markii oo hortaada yaala asoo meyd ah dee waa dareemi kartaa maskaxdaada dee waxa gaari kara xanuunka gaari kara xanuunka intaa leeg oo gaari kara waa dareemi kartaa marka taasaa dhacday marka arrintaasaa dhacday marka dee arrinta keenaysa oo meydka in la tuuro arrintaa weeye marka dabtaasaa dhacday marka cabaar markuu meydka saara waxaa la hor meydka naga asturo meydka sidaa lagu mataqaanaa laisku aadinayay janaasada lagu tukanayay marka intii mataqaanaa meydkaas janaasada lagu tukanayay waxaa dhacay in mataqaanaa kabtankii koowaad ee doonta oo kabtankii koowaad oo kabtan maxamed al lahay waa nin Nigerian oo ahay kabtankii koowaad ayaa asna maalmahaas shoog ku jiray oo mataqaanaa shoog qaaday maadaama dee qofkii la eedeynayo oo ahay dee dadku ay dhahayeen adaa saas u sababa doonta maxaa xoog ugu waday doonta maxaa saas u samaysay maadaama ninkii lagu qayqayliyay dee jirxuun badan la tusay ninkii waa shoogay oo markasta wuxuu dhahay ana wuxuu dhahay sayid bari gariib oo dhahay marka bari gariib waxa laga wadaa dee xeebti ma dhowdahay taasoo ku shooga marka taasoo ku shooga mar walba anigu weydiinaa bari gariibta ugu celina xeebti ma dhowdahay oo ku shoogay marka ninkii hal mar istaaga ka dhacay mataqaan fadhiga oo fadhiya oo qofkii oo mataqaanaa ku xigay oo saas ugu dhacay markii oo soo dhacaya kabtanka kaleeta oo kabtan cali la dhahay asna Nigerian waa maalintee maalinkaas maalinkii intee markaas saarintii isla maalinka wiilka maasim uu dhimanayo waa maalinka isla maalinka maalinkee waa maxsuus halkaa waa maalinkii maalinka tobanaad miya waa maalinkii 15aad waa maalinkii cuntadiina waxayna ka dhamaatay maalinkii tobanaad ma cunto naga dhamaaday biyaha naga dhamaaday maalinkii tobanaad biyaha naga dhamaaday meedku ugu horreeyayna maalinkii 13aad ahay maalinka 14aad qof nagama dhiman maalinkii 15aad waa maalinka kala hadlayo oo wiilka dhintay wiilkii meedkiisa soo yaala waxa dhiman doona hadana kabtankii koowaad ee doonta oo kabtan maxamed allah ay kabtan Nigerian ahay oo markaas markuu masaasna soo dhacay kabtanka kale taa wuxuu dhaawar ninkan la jeegaray asna sidii lagu jeegaray asna ninkii asna meedu ahay marka labadii meed mataqaanaa sidii mataqaanaa janaasada loogu tugtay sidii mataqaanaa la isugu duway sidii badda la dhex dhigay farxiyo hal mar qof sanahay hal mar horena qofna muudkiyo ka soo bixin sida cali ku soco hadalkaaga tabtiaan ugu dhacday marka maalinkaas 15aad markuu dhintay maalinkii ku xigay qof kale ma dhimano waxaa jira maalinkii kale isla maalinkii 16aad habeenkeedii waxaa dhacday wiil kale oo la dhaho asna haykal la dhaho oo magaciisa haykal la dhaha wiilka wuxuu kasoo jeedaa reelaas caanood oo ahay marka wiilka waxaa asna naqas uu qabay wiil aad u jab yar oo ahay dadka jabka yar oo ahay marka asna naqas uu qabay naqaskii ku dhagayay waxa garabkiisa jooga wiil saaxiibkiisa ahay oo asna la dhaho hanad la dhaho oo yarka saaxiibkiisa isku meel isku deegaan kasoo jeeda ayaa mataqaanaa garabkiisa ahay marka wiilkaas dee garabkiisa ah marka wiilka naqas qabanayay aad naqas u qabanayay marka yarkaas waxa dhacaysa isla habeenkaas inuu asna habeenkaas oo 16aad oo soo galayso inuu dhinto maalinkii 16aad subaxiisana oo dhaho ninkii waa dhintay ninkii la fiiriyay sidii asna lagu soo dhigay sidii lagu jeegareeyay sidii asna doonta lagu tuuray maalinkii ku sii xigay waxaa dhacday marka qofkii ku xigay inuu dhintay laba maalin oo maalinkii 17aad 18 intaba meeda dhacay marka waxaa jirta laba meed marka ilaa hadda aniga maskaxdayda dee aan kala saari la'ahay qofkii soo horreeyay maadaama dee meedadkaas markay dhaceen dadkii asxaabta markay dhimashada ay bilaabatay qof walba inay noqotay dee waxa waaye qof walba meedka sugo qof walba adaa ku xigtay la isdhahay dee qof kasta shooga in kastoo sheego loo kala badnaay dee oo shooga marxalada uu kala leeyahay stage 1 stage 2 stage 3 kala leeyahay shooga lagu kala badnaay dee qof walba dee waa shoogsanaa dee adimaa ku xigtay dee waa geeridu dee waa falaara cirka u dooray qof walba ila filay noqotay qof walba marka meedkaas oo arkaa qofkii waa sii joogaa asaa marka wuxuu isleeyahay qof walba ku xigtay marka labada qof aan kala saari la'ahay markuu hay kaloo dhintay labada qof ku sii xigtay waxay ahayd waxa waaye waa maxamed shiine iyo gabar la yiraahdo maqsuud cabdiraxmaan maxamed la dhaho ilaahay ha u naxariisto labada meed ku xigay marka labadaas qofkii soo horreeyay aan ilaa hadda i kala baxsanayn maadaama aan ku shoogay dee labada geerida aan ku shoogay marka labadaas geeriya ku xigtay waxaa kaloo mataqaanaa maalmihii kale ku sii xigtay markii geeriyaas dhacday oo qofka labada qof ay dhinteen oo marka qofna maalin dhintay maalin qofaa soo horreeyay ama wiilkaa soo horreeyay maxamed shiinaa soo horreeyay
ama waxaa soo horeysay gabadha maqsuuda soo horeysay labadaas geeri marka waa ii kala baxsanaa laadahay ilaa waa ku shoog geeridan ku shoogay ahayd wixii ka dambeeyana dee geeridu waxay noqotay talantaaliya noqotay geeri istaba joogay noqotay geeri waxay ahayd mataqaanaa oo mataqaanaa loo dhimanayo laba laba saddex saddex afar afar loo dhimanayo ahayd hal subaxa waxaa kusoo kacaysaa saddex qof ama afar qof oo mataqaanaa waa dhinteen la dhahayo mataqaan barta yaalo hal isku duwo ay noqotay marka geeridii sidii ku socotay ilaa laga soo gaaro maalinkii ugu dambeysay oo badbaadada maalinkiina la badbaadinayay aniga waxaan la badbaadiyey maalin casr aan la badbaadiyey marka waxaan kaasoo kala dhaafay geerida intaysa dhicin maxamed shiine iyo saan kuu sheegay iyo gabadhii kaleeto maqsuud allah u naxariiste inta aysan dhiman oo haykal maalinka oo dhintay oo maalinkii ku xigay ayaa waxaa dhacday in shamberi anagoo mataqaanaa markab la oo markaas dadkii qaar ay dhinteen oo haykal ugu dambeeyay oo naga dhintay maxamed shiine markaas iska tacbaan ahaayeen iyo gabadha maqsuud mataqaanaa markaas naqaska uu qabanayay ayaa waxaa dhacday inaan dhahno alla ilaah haddoo markab naga soo baxo markaa anaga nafteena waa hurayna waa dabaalinayna sidii aana dhacday waxaa anagoo maalinka iska joogno waxaa dhacday markaba waxaan ka aragnaa qoraxdii marka saa usoo bixaysay ama waxaan ka aragnaa markab meesha ishan u dambeyso ayaan markab ka aragnay marka markabkii markii aan aragnay dee dadkii meesha saarnaa dee inta badan dadkii waa gabdhihii waa ooyeen oo gabdhihii weliba siba gabdhaha ayaa waa ooyeen war noo dabaasha meeshii caloolka hadal ay noqotay war noo dabaasha mataqaanaa ku celiyeen dadkii mataqaanaa waa ooyinaa mataqaanaa gabdhihii ooynaya markii dambe aniga dee xaaladdu waxay baday inaan mataqaanaa dhaho war aniga intii nafteeda horta waa hurayaa dhahay aniga waa baxayaa laakiin meeshaan ku dardaarmo oo dhaho war lacalla haddaan soo laabo waayo dee hooyadii familkiga haloo sheego ninkii waa dhintay hala dhaho lacalla haddaa idinka badbaadiyeen sidii aan sameeyey anigaa dhahay mataqaanaa waxa waaye aniga waa dabaalanayaa jaakadeedaan xirtay sidii aan isku diyaariyey waxaa markay dhahay sidoo ka harayno waxay dhahay maxamed mataqaanaa wiil la dhaho ciise dhoodhe oo asna dabaasha yaqaanay iyo wiil kaleeto asna markaas xogaa asna mataqaanaa magaciisa la dhaho cabdifitaax la dhaho ayaa wuxuu dhahay markaa harayna sidoo inta annagan dabaasha waan israacaynaa dee meelan kaaga harna ma joogno dabtiyaa dhacay aniga qofka ugu horreeya doonta ka boodaa ahay oo dabaasho markaan saa u booday waxaa iga soo doobooday ciise dhoodha iga soo doobooday cabdifitaaxa noogu dambeeyey sidii aan ku dabaalanay markii sidii aan ku dabaalanay cabaar aan soconay doontiina kasoo dheeraanay ayaa waxaa dhacday dee markabkii wuxuu noo dhaafay dhankaas kale noo dhaafay maadaama markabka aad noogu fogaayo wuxuu meeshii aan ugu soconay maahan dhankaas kaleeto noo dhaafay marka waxay noqotay dantu waxayna bidda dee inaan dhahno dee markabkaana gaari mayno dee markabkaana waana dhaafay ujeednaa korkaasuu sii maray dee asana nama arka dee waa markab meel dheer jira marka dantu waxay noqotay inaan mataqaanaa doonteeni aan ku noqono annagana dee xaaladdu daalin aan ku jirnay oo murqihii waa dareemi kartaa adoo waxaan cunin badiina aa gashay oo dabaalatay murqahana xanuuna oo murqaha oo garabka oo dalta masalka oo mataqaanaa garabka iyo ilaa iyo maxaa ku dhahaa cududan oo muruqa ilaa mataqaanaa cajirada ayaa aan ku dabaalinayna aan xanuunay markaasaan heer waxaan u gaarnay inaan mataqaan xoog waxaan saarnay inaan ku noqono doonteeni aan kasoo tagnay sidii aan mataqaanaa kusoo dabaalanay ciladkaatana waa dhacday oo biyihii oo ka imaanaya doonteena xagga doontii aan u soconay biyihii kasoo socdeen biyihii waxay nagu wadaan meel kaleeto nagu wadaan sidii aan mataqaanaa sameynay waxaan mataqaanaa dabaashii mataqaanaa waxaan isku daynay inaan awoodda aan saarno sidaan mataqaanaa ku noqo lahayn oon doonteena aan ku noqo lahayn marka mar walba aan dabaalano cabaar aan soconno nasada marka cabaar haddaas dhahday naso haddana biyihii aan kusii celinaya calaa xaal usay noqotaba cabaar saa usii dabaalanaynay oo mataqaanaa juhdi aan gelinay markii dambe ilaahay wuxuu noo saqiray inaan doonteena haleelno oo marka doonteena markii aan haleelnay dabtiyaa meesha ku mataqaanaa ku tabarbeelnay anaga saddexdeena dabaalanay marka meesha ku tabarbeelnay maalmo kadibna geerida kalaana gashay oo saa inii sheegay maxamed shiine iyo maqsuudaana gashay ilaahay u naxariisto bacdeenna dee waxay noqotay dee geeri oo sida mataqaanaa si xadka baxa loo dhimanayo saddex afar subaxii lagu soo kacayo habeenkii dhimanaya dee markaasna tiradii waa mataqaanaa la tiro koobka waa dhaafaba marka waxaa dhacday ilaa maalinka ugu dambeysay oo maalinkii badbaadada nala badbaadinaya annaga maalin mataqaanaa xilli ilaa galbihii markay tahay ayaa qofkii ugu dambeysay oo naga dhintay qofkii ugu dambeeyay naga dhintay wiilkii ugu dambeeyay oo mataqaanaa anaga indhahana qabtaan oo asagoo xaaladda mataqaanaa xaaladii mataqaanaa oo indha cadeyska ku jira oo qofku nafbaxaayo indha cadeyska qof markuu nafbaxaayo agtaada ku nafbaxaayo
waa arkaysaa qofku saasoo waa neeftuura neeftiiduu bilaaba qofka indhuhu kor taagaa uu qofku meel qabsi galayaa oo mataqaan inuu meel qabsadan ma lahan doonta waa dareemi kartaa dee marka qofku saasoo indha cadeynayay maalinka markii ugu dambeysay annagana tabar mataqaana aan ku saacidno ma lahayn tabar aan ku saacidno oo mataqaana qofka aan ugu tagno ma lahayn annagaan bartay aan saarnayn ka dhaqaaqi weyne labadeena xitaa isla joognay oo maxaa ku dhahaa isxignay oo aniga yaasiin aan xitaa biyo xitaa isku dari karinba marka dadkiyaa dhacday markii casirkii la gaaray xilliga casirkii ay ku aadaneed qoraxda ayaa waxaa hal mar anagoo saas mataqaanaa saa madaxa dhulka dhignay oo madaxa dhulka ku hayna hal mar waxaan ugu mataqaanaa wax jug ah hal mar nagu dhacday intaa sayid caliyo hal mar buu wiilka ugu dambeeyay wuxuu ahaa ciise ciise dhoodho ahaa wiilka ugu dambeeyay ilaahu naxariisto marka